kusoo dhawaada casharkeenii labaad ee xiisadii pharmacology-ga ahayd. Pharmacogeneticsku waa in la barto un inherited genetics different metabolic pathway-ga, yacni pathway-ga ee ay marayaan genetic ahaan ama hiddahaan inay marayaan pathologic pathway-gyada ay marayaan ayaynu oranaa pharmacogenetics. sida tusaalaha hortiina ka muuqda enzymeska, messengerska iyo receptorska, waxaas oo dhan markay selkii farageliyaan oo nucleuskii iyo dhulkii ay u dhaadhacaan waxay faragelinayaan enzymeski, messengerski iyo receptorski. marka waxaan oranaa genetically bay hab uga shaqaysanayaan. mar kalena waxaan oran karnaa pharmacogenetics-ka waa inay geneticska yani waxaan ka soo saarno oo tusaalahaan haddii aynu ka faa'iidaysanayno bacteria kalaya inaynu ka soo saarno insulin ta aynu faragelino yani nucleuskeega ama hidde-sidayaashooda inay faragelino deena si aynu uga soo saarno wax badan. insulin baa lagu sameeyaa insulin badan si aynu uga soo saarno. marka waxaan oranaa pharmacogenetics-ka branches baynu haddaba yara gelgelin doonaa oo barnaamijkeena aynu in yar ku yar nasan doonaa. haddaba waxaanu pharmacology branches jira, marka intii ugu muhiimsan way soo qaadanaynaa xabad yar dul istaagi doonaa pharmacogenetics-ka iyagoo badbadan oo yar program yar palaaran baynu si fiican u geli doonaa. waxaanu samayn doonaa inaynu pharmacodynamicska, therapeutics-kiisa iyo waxyaabaha chemotherapy-giiska, toxicology-ga, clinical pharmacology-ga, inaan pharmacists-ku waxay yihiin, pharmacogenetics-ku waxay yihiin, pharmacogenetics imika hordhacun bay ahayd inaan ka siiyo. marka bal ugu horeyso bay brancheska ugu horeysa ama qeybta ugu horeysa may bilaabi doonaa. marka medical pharmacology-ga ayuu qeexitaan sameynaya fiican. kule waa zyniska substance waa walaxda oo loo isticmaalo in lagaga hortago. Zynisku waa walaxda ay u isticmaalaan tusaalahaan in lagaga hortago wax iyo in lagu diagnosegareeyo ama treatment disease lagu daweeyo cudur. marka medical pharmacology-gu waa intaa, haddii lagu dhahdo intaa lagu weydiiyo waa intaas. toxicology-gu waa branch, waa qeyb ka mid ah pharmacology-ga kaasoo la xiriidha yani ceebaha undesirable effective chemical living system ay leeyihiin ku leeyihiin jirka iyagoo ka imanaya individual cells human complex ecosystem-ka. toxicology-gu mar kale waxaa oran karnaa waa barashada ay toxicology ama toxinka ay jirka saameynta kula sida u saameynayso undesirable effective ay ku keenayso ayaynu oranaa toxicology bay waa qeybta. marka way jira qeybo badan oo la yidhaahdo toxicology. tusaalahaan haddii uu qofkaasi cuno dawo aynu tusaalahaan soo qaadan oo opioidska ku jirta, tusaalahaan aynu soo qaadano morphine hadduu qofku cuno ama uu isku mudo wuxuu ku keenaysaa inay saameyn badan ku keento. yani tusaalahaan inuu meesha beerku saameyn ay ku yeelato, beerku saameyn xun ku yeelato kaga tagto. marka ay saameyn xun kaga tagto tusaalahaan liverka siday ugu saameynayso, siday ugu wareegayso, waxaasoo dhan barashadeeda toxicology waaynu oranayno. ama qofka ku taxalluqa ama yani aada u daraaseeya ama u bartaa sida uu saameynayso waxaan oranaa toxicology-ga oo kaas bartay. pharmacogenetics soo qaadanaa. pharmacogenetics-ku waa inagii branch aynu qadirinay waxay drugsku ku sameynayaan bariga, yani drug wax lagu sameynayo oo jirku markaa uu ku sameynayo. marka wuxuu ku sameynayaa afar qaybood: absorption inuu ku sameeyo, inuu nuugo wixii, distribution inuu jirka yani ku fadiyo, metabolism inuu sameeyo. distribution-ka waa inuu jirka dhammaan wada gaaro.
marka dhammaan jirkii wada gaadho waxaa la sameynaya in metabolism lagu sameeyo deena marka dambana excretion lagu sameeyo. saddexdaa marxaladood buu pharmacokinetics maraya. haddii uu intaa maro markaa pharmacokinetics absorptionka sida absorptionku u dhacaya marka drug absorptionku waa movementiga ama waa in la soo qaado drugga from site administration in bloodstream. waa in laga soo qaado site-kii lagaga muday ama site-kii laga siiyo qofka. hadduu iminka small intestine-ka yahay waa in laga soo qaado absorption lagu soo sameeyo oo jirkii loo geeyaa si metabolism loogu distribution metabolism loogu sameeyo then excretion marka dambe loogu sameeyo. metabolism marka lagu sameynayo waa in waxyaabihii faa'iido lala hadlo marka dambena oo inta haddii irbad yahayna intermuscular tahay in muscle-kii laga soo qaado deena la geeyo site appropriate yani site-kii ugu fiicnaa ama la geeyay waa inta absorption. types of absorption ku wuxuu noqon karaa saddex qaybood. in passive absorption lagu sameeyo ama active absorption lagu sameeyo ama phagocytosis iyo engulfing lagu sameeyo. waxaa jira factors that affect absorption-ka saameeya. marka hore marka absorption-ka la sameynayo site-kii baa laga soo qaadaya deena bloodstream baa soo qaadaya deena site-kii wuxuu geenayaa meeshii loogu talagalay ee lagu ku xigtay dabaqada oo distribution ah deena metabolism lagu sameeyaa marka dambana maxay excretion lagu sameeyaa. marka intaas oo dhan waxa shaqeynaya dhiig. marka waxa saameynaya oo saameyn ku leh blood flow-ga saameyn ku leh. hadduu yar yahay dawadaade ma filano inuu wax badan lagu qaadayo. pain inuu xanuun jiro oo xanuun badan jiro. stress inuu jiro oo waxyaabo badan oo ay isbedeli lahaayeen hormono badan inay khalkhalsan yihiin. hunger inuu qofku gaajoonayo kalaya saameyn bay ku yeelanaysaa. fasting inuu qofku soomayo kalaya. food cuntada saameyn bay ku yeelanaysaa qofka haddii cunto badan cuno load badan cuno inay raagtaa laga yaaba by ability-gii lahayd. pH-ka saameyn ku leh isaguna. exercise-ka ku leh saameyn isaguna. root administration-ka iyo barta lagaga muday qofka ayaa saameyn ku leh oo way kala fiican yihiin rootisku xataayo. waxaa jirta haddii imika lagaa siiyo fiinka uu ka degdeg badan yahay haddii laakiin muruqa lagaa siiyo in badan bay qaadanaysaa. marka way ku kala duwan yihiin meelahan oo dhan. marka saameyn wax ku leh intaa qaybood haddii la xeliyo waa fududaanaysa. cashirkeena maanta intaasaynu ku joojinaa. aad baa umahadsantihiin saanaynu ku badan. marka kulan dambe insha allahu tacaala ee xiga ayaynu halkaa kasii bilaabi doonaa hadduu rabbi ogolaado. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ha iloobina subscribe-ka like-ga iyo share-ka si aad loo wadaagto walaalaha. aad baad idin mahadsan.